عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqosho kale iyo kulan kale oo xiiso leh. Waad salaamay dhamaan asxaabta ku xidhan channelka. Waxaan sii soconay course-keena physiology-ga ahaa. Casharada introduction-kii baan soo sharaxnay ama isku soo daynay. Waxaynu ka sii socon doonaa insha Allah qeybihiina ku soo xigay introduction-ka markaas. Kolley qeybihiina introduction-ka waxa ku soo xigay waxa la yiraahdo cell membrane ama plasma membrane saan naqaano. Kolley cell membrane kan plasma membrane kuna waxa khusaya casharkeena imkaan caawa dhigan doona insha Allah. Waa cell membrane waxyaabaha kala gudba iyo waxyaabahaas ayaan ka soo tagnay. Waxaan ka soo tagnay kaana sababtoo ah waxaan ku soo qaadanay course-kii cytology-ga lahaa oo dhamaantiisa wada sharaxnay. Insha Allah waxaan ka sii socon doonaa caawa casharkeena. Waxaan soo gali doonaa ka soo raadada membrane potential ama action potential baan caawa isku dayi doonaa insha Allah inaynu dhamayno si aan hadhow galno excitable tissue-yada la yiraahdo oo ka dhaco action potential-ku nerves iyo muscle-ka. Ka casharkeena soo gudgali doonaa membrane potential baan ka bilaabi doonaa. Okay. Waxay nooga horeeyay ciwaanka xooyaan waa resting membrane potential. Hadda membrane potential-kan aan leenahay xilliga uu resting ku jiro eegi doonaa. Kolley xilliga uu resting ku jiro xilli kala maaha oo markuu nasanayo 8 minutes. Membrane potential kalmadan maxay u taagan tahay? Membrane saa ku muuqda waa cell membrane-kii potential wax ka tirsan Soomaa. Marka wuxuu noqonayaa waa sabistanadani maaragtay sida sodium, potassium waxyaabahaas oo kale time-ka ay ka kala gudbayaan ama waqtiga ay ka kala gudbayaan say u kala gudbayaan ama kala duwanaanshaha voltage-kaas baynu odhan karnaa ka kala gudbaya plasma membrane ama cell membrane-ka ayaynu odhan doonaa membrane potential. Waa waxyaabahan ka kala gudbaya ee sababaya action potential. Waxyaabaha galaya membrane potential-kan wuxuu tusaale ahaan sodium baa mataqaanaa salkii galaysa waxay sabaysaa action potential. Potassium baa salkii ka baxaysa waxay sabaysaa action potential. Waxyaabahaas oo dhan baynu ku qeexaynaa membrane potential. Resting-ku muxuu yahay? Resting-ku waa xilliga uu membrane potential-ku ama VM baan soo gaabin doonaa voltage baan soo gaabin doonaa. Waa xilliga uu resting ku jiro. Waxaan odhanayaa resting membrane potential. Xilliyada resting-ga waxa lagu yiri electronegativity uu baxaya. Waxaan jeedaa electropositivity waxyaabaha positive-ka ah positive charge-ka uu baxaya. Halka negativity-gu ama electronegativity-guna oo insaan noqonay electron. It means electron iyo positivity baa saaray. Waa electron-ku markuu positive yahay. Waa electron-ku markuu negative yahay. Kaas ka dhigan tahay. End of the neuron wali baan iska dhahay. Soo kale cells-yadeennu waxay leeyihiin ability ay cells baale cells-yada sida muscle-ka iyo mataqaanaa nerves-ku waxay leeyihiin ability ay ku helaan action potential. That's why baan leenahay waxa la yiraahdaa magacooda excitable tissue. Okay. Ability waxay leeyihiin ay ku tagi karaan action potential to resting membrane potential. Marka haddii lagu dhaho waa maxay excitable tissue waa tissue-yada kuwaasoo haysta resting membrane potential ugu bedeli kara action potential. Kaas la soo odhanaya tusaale ahaan kale 70 millivalent macnaha waa qiyaas waa xilli halka ugu hooseysa laga qiyaasa macnaha uu cell-ku ku joogsado mataqaanaa resting membrane potential. Markastoo aad aragto minus-na waxaad arkaysaa inuu meeshu negative yahay. Aad aragto minus waa resting inuu yahay waan kartaa. Sababtoo hore noogu soo sheegay leeyahay xilliyada electronegativity inside-ku guduhu yahay cell membrane-ku mataqaanaa waa xilliga resting uu yahay weeye. Xilliga positive-kuna uu baxayo. Marka minus kan wuxuu noqonayaa xilliga resting-ka. Ka socono. Waxyaabaha daba resting membrane potential ka sababaya. Resting membrane saddex qodob baa sababaya. Inagoo concept-keena dadajinayna kow waa sodium ka baxday salka kow way sabaysaa oo intracellular ka tago extracellular ka tagaysa. Waan iska gareynaa mataqaanaa extracellular fluid-ka ay sodium ku badnayn halka ay mataqaanaa intracellular fluid-ku ku badan tahay potassium. Sidaa daraadeed waa in intracellular ka baxdaa ay tagtaa extracellular. Result-ku wuxuu noqonayaa inay potassium ka baxdo. Marka it means resting membrane potential-ka qodobka uu koowaad ma jiro waxa sababay wax weeye waa potassium outflow ama potassium division. Soo kale waxa sababa resting membrane potential-ka sodium potassium pumping. Sodium potassium pumping muxuu ahaa? Waa kii potassium saari.
sodium potassium ATP la dhahdaa ama iska oran kartaa. Marka waa enzyme saara sodium ka saara mataqaanaa potassiumta kaanoo sooba sidoo kale waxa sooba resting membrane potassiumka kuwa la borotiin la dhahdo ama charge la dhahdo negatively charge oo non divisible proteins la dhahdo. Non divisible charge proteins kan waa borotiino nature ah oo ku yaxla cell membrane ama plasma membrane ku yaala kuwaasoo negativity kuwaana way soobi karaan. way halka kasoo uu yaala wuxuu yahay marka xaqiiqada laga hadlayo wax inside keena waxa ku badan negatively charge ay ahaan obviously halka anterior ku macnaha mataqaalka salka dibadiisuna positive ku badiyay waatan anterior ku haystaa has less positive halka posterior ku haysto mataqaana negativity marka guduhu wuxuu ku badan mataqaana waxa ku badan soo sheeg negative-ka halka positive-kuna ku yaryahay halka ay dibaddu positive ku badan yahay negative-kuna ku yaryahay ka wacks. way haddaba waxaan isku day doonaa wado channelskan waxyaabahan leenahay isla bariiha gudbaya sagu kala gudbayaan channelsku wax kala ma aha waa markuu isbedelayo mataqaana membrane potentialku iyagoo membrane potentialka waxa sooba maxay deynay channelskan ama either inuu ahaado leakage or inuu ahaado gated. marka it means waxay tahay membrane potentialka waxa sooba either ka dhiga action potential ama ka dhiga mataqaanaa membrane ka dhiga resting membrane potential waxay isbedelay ionska kala soconay weeyaan. way ionska laba unbay ku socdaan idina leak channel ahaadan ama inay gaad ahaado leak magaca ku waxaynayo leak waa meel bannaan waa nan gaadir weyn manaha wax dabool ma jiro hadi jiro iska fuliyin gaadarkuna either way furnaan karaan either way xirnaan karaan. way iyo waxay ku kala duwan yihiin trigger event waxyaabaha stimulate garanaya waxyaabaha soobay saddexdan kala qaadi doonaa kow waa voltage gated oo voltage-ka maxaa ugu badan inaga adeegsan doonaa resting membrane potential-keena oo waxyaabaha soobaya voltage gated-ka voltage baa soobay oo soo lahaan sodium potassium waxyaabaha kala soobaya in dadka sodium to gasho salka inay wax soobto effect ku yeelato potassium ka baxdo in effect ku yeelato tusaale ahaan saa kale voltage ku noqonaya like chemical oo kala noqon kara oo chemical-ka ama ligand gated baa kartaa maxaa ligandka ka xasabaya waa chemical messenger sida hormones enzymes waxyaabahaas kale noqonaya mataqaanaa waxyaabaha chemical ka soobay adu as like hormones tusaale ahaan good example way mechanical marka leenahay waxay doy mechanical marka leenahay wuxuu yahay mechanical wuxuu noqon doonaa response stretch or other mechanical deformation maanaha kan wuxuu noqon karaa asaforas ahaan heat ahaan temperature ahaan waxyaabahaas kale noqonaya mataqaanaa ayaa soobi kara mataqaanaa ay soo sheeg ionskaas kala soconaya membrane potentialka waxyaabahaas kala bedeli kara. okay hadda qodob noqonaya way haddana action potential isku dayno action potential waa xilliga uu salku action ka qabanayo magaca ku muxaynaya. way action potential ku waxay oo isbedelka resting membrane potential to uu isugu bedelayo mataqaanaa isugu bedelayo action potential resting membrane potential ku wuxuu isku bedelaa action potential isagoo si dhaxmar waxa loo yaqaan depolarization. depolarization waxa weeyaan it means halka markuu action potential-keenu yahay 70 millivolt marka kor u socodkaas la odhanayo depolarization kor buu kacaya polarized charge-kii baa kor u kacaya noqonaysa markaas macnaha positive baa la tagayaa bay noqonaysa. way xilligaas eeg maxaa furan sodium channels baa furan oo qasab depolarization kama sodium channel baa furaya waxay ismay marka more sodium baa furmaysa halka ay marka dama sodium tu xirmayso sababta hadhow kala ka doonaa sodium ta labanka qaadi doonaa activate inactivate xilliga activate ka labada phase activate-ki xilliga markii close gaadhana sodium tu xirmaysa maxay furmay potassium channel bay furmay marka potassium channel say u furmato ay mataqaanaa salkeena uga baxdo marka hadhow tolo say u xirmato oo galno resting kala galno. way xasal odhanaya mataqaanaa ay soo sheeg resting membrane potential aan odhanaya mataqaanaa action potential soo kale action potential-ka dhulka wuxuu galaa dib u galaa resting oo la yiraahdo repolarization. waxa la odhanayaa action potential ama nerve impulse barada magaca kale loo yaqaano action potential-ku waa rapid conductivity oo degdega waa reversible waa change membrane potential asal stimulate soo kale salkana uu stimulate karaya. way action potential-ka haddaba action potential-ka maxaa action potential-ka noo sii qeexayna action potential-ku isagu markaynu leenahay haddii halkan maxaa soo gaabsantay
membrane potential. Haddii membrane potentialku gaadho threshold, waxaa jira threshold la yidhaahdo ama waxyaabo sababaya mataqaanaaye normal action potential. Sidoo kale waxyaabo kaloo iyagana sababaa jira waxyaabo far from normal ah sidaas oo ahaan positive mechanismku isaguna uu sababa action potential, laakiin isagu waa sodium fara badan jirka soo gasha pathological isagoo noqon doona ama waa mataqaanaa xanuunaa jira ama aduu waxa lagu joogteeyaa sodium fara badan inay salka markaas gashay noqonaysaa. Laakiin thresholdka waa ugu badan aan adeegsanayno hadda jeer haddaan odhano markaasi threshold aan naga maqashada afkeena. Threshold waa mataqaanaaye waa xilliga ay normal sodium channel furmayso ay normal sodium dhex marayso. Sodium channels ayaa furmaya halkay sodium invalid salka soo galayso ay depolarization soo hayso taa depolarization gudi depolarization kor kicitaanka depolarization la odhanaya. Marka wuxuu noo sababayaa sidoo kale wuxuu sababayaa inuu mataqaanaaye resting membrane potentialkiini inuu increase garowo. Taas waxay sababaysaa rise phase la odhanaya oo phase kaas la odhanaya rise phase oo phase kor kicitaanka ama action ama depolarization la odhanaya of action potential. Sodium tuna waxay mataqaanaaye noqonaysaa inactivate halka potassium channels ay furmayaan halka markaynu gaadhno. Kadib potassium channel way naga baxaysaa potassium far badan naga baxaysaa markaa repolarization la odhanaya. Haddaan kan depolarization la odhanay kana repolarization la odhan doono ama filling phase la noqonay. Potassiumku marka loo eego mataqaanaaye waxay potassiumtu channelskeedu waa yar yihiin waa slowly macnaha waa air weyn xoog maaha to open ku furmaan sidoo kale slowly close weyn. Taas waxay noo sabaysaa action potentialkiin inuu noqdo mataqaanaa membrane potentialkan oo VM aan soo gaabin intuu ka mid noqdo hyperpolarization macnaha charge gareys inuu charge fara badan oo noqdo hyper macnaha waa high. Intan uu kala baxo action potentialku waa xilli resting uu yahay waa xilliga uu resting ka yahay xilli uu depolarization noqonayo iyo xilli uu repolarization noqonayo. Dhulka kama ku joogana resting mu noqonayo. Kow sodium markay soo furmato waxay markaas waxaan dadku kuwan hadda soo sheegno ma noqonaya. Marka inta aan ka sheegnay action potentialku waa xilliga uu resting ka yahay xilliga uu sare kacay depolarization ka yahay iyo xilli ay waxaan odhan maxaa sababay depolarization maxaa sababay sodium ba furmaysa ilaa halka marka la joogo halka sodium tu istaagaysa kadib waxa furmay potassium channel mayna dhaafaysa markaas saas ku dhacaysa repolarization inta weeyanba. Sodium ka sheegayna sodium laba kala qaadi doona activate and inactivate kala qaadi doona. Activate markay sodium activate garsan tahay ay sabaysa depolarization. Xilli kale waxaa jirta inactivate tahay sodium mataqaanaa xilliga inta aan la gaarin repolarization ayadna inactivate la odhanaa dhawan tagi doona. Laakiin activate-ka noogu horeeya muxuu yahay? Activate-ku isagu waa marka ay furmayso depolarization markuu kor u kacayo weeyaan waa fast open saruna furma. Sidoo kale depolarization waxa sababi kara positive mechanism. Haddii wax soo sheegnaa sornay waxa sababaya sornay threshold oo threshold waa normal sodium channel ba furmaysa normal sodium baana dhex soconaysa channelkaas. Channel macnaha waxa weeyaan waa wada ay dhex marayaan sodium bay noqonaysaa. Channel macnaheedu waxay ka dhigantay waa wado. Sidoo kale positive mechanism ku sababa muxuu sababaya isagu sodium channels buu furmaya. Laakiinse waa more depolarization muu sababaya lagu leeyahay. Taas waxay sabaysaa ku leeyahay more sodium channel inay furmato. Action potentialku kadib isbedelaya up to axon hilligas marka la hada jirto oo mataqaanaa uu leeyahay axonku ama marka nerveska la kala qaado saddex kala qaada qayb waxa jirta dendrite la yiraahdo horta intuu baad salahan soo qaadan kartaa waxay leedahay mataqaanaa faraaqay leedahay dendrite soo dhaca dhexda cerebral la dhaca axonkuna waa kan dheer neuronka markaas kaas oo mataqaanaa ka soo kacay axon hilligas meel yar oo dhex bartanka axonku dhex taalooyan yaa sababi kara soo mataqaanaa ay sababi kara action potential oo threshold la dhaho. Kala inactivate gated-ka ama sodium ay tahay hayn wuxuu ku xiran yahay voltage dibadda keenana voltage dibadda maaha obviously the sodium ku xiran close and depolarization. Soo kale waxa la yiri mataqaanaa kan la yiraahdo inactivate-ku wuxuu xirayaa depolarization ka soo inoo geeyay repolarization obviously wuxuuna sababayaa hyperpolarization time na soo kala qaadanaya. Anaga waxa soo dhawaynaa sodium potassium haddana isku lamaad eeg potassium tu maxay tahay potassium tu iyo sidoo kale voltage dibadda gooyaan oo voltage waxa sababaya voltage ku xiran tahay sababtoo ah voltage anaga soo sheegnay waxyaabaha ions ka weeyaan
waxay dareentaa depolarization. Markastuu depolarization dhaco qasab waa inay dhacdo repolarization oo ay soobayso potassiumta. Sidoo kale time dependent timekeedu badan yahay. Open waa sidoo kale time dependent, macnaha time bay ku xiran tahay. Open more slowly than sodium channel. Way furmataa in badan marka loo eego sodium channelka. Negative feedback iyada macnahaas normal ahaan baa lagu joogteeyaa. Markay soo degdegayso oo kale repolarization ka soobayso, taasina waxay kutusaysaa hyperpolarization obviously. Halkan waxaan kusoo dhameynay action action potential kan soo qeexnay, memory potential kan soo qeexnay, resting memory potential kan soo qeexnay, sidoo kale action potential kan saddex soo kala saarnay iyo waxyaabaha sababayaan soo kala qaadanay. Haddaba waxaan ka sheekeynay action potential ka soo gudbaan daba eegi doonaa. Action potential ka wuxuu gudbaa labadan system inoo socdo inagoo u tixgelinayna iyadoo inuu myelinated yahay ama inuu unmyelinated yahay. Sidoo kale oo ka soo kacaya action potential wuxuu ka yimaadaa meel la yiraahdo axon xil laga sameeyo la dhaxay jirtay oo ku taala axonka ku dhex taala sabab soo sheegnay axonka nerves ku dhex taala. Taas waxa way soo socotaa ku leh synaptic club. Synaptic club wax kale ma aha. Synapsigu macnaha neuron wuxuu leeyahay qayb dilation portion yar. Dilation portion ka yar waxa la yiraahdaa isu sheeg inay exalahaan kale intayna soo qaadano كان وسقط نيرانكي. geeda say ku xuliyay taabtay faraaqis ay kala markaas qaybtaas dhexda waxa la oranayaa cell body ama soma soo kartaa qaybta faraaqida soo kartaa dendrites qaybtaasna waa qaybta axonkiya dheer qaybtan dheer mana halkaas kale qaybtaas kale noqonaya mataqaanaa kan ka sheekaynaha qaybtaas kale noqonaya mataqaanaa axon xil laga soo noqonaya. Markay leenahay synaptic club-kuna synaptic club macnaha dilation portion uu leeyahay mataqaanaa isoo sheeg neuron-ku leeyahay ay noqon doona oo kula xiriirayo neuron kale ama postsynaptic kala xiriir hadhow baan arki doonaa. Markaas waxaan wax gudbinaya waxa loo tixgeliyaa laba qodob loo tixgeliyaa iyada inuu myelinated yahay ama inuu unmyelinated yahay. Neuron-kaas inuu myelinated yahay ama inuu unmyelinated. Marka myelin hadduu leeyahay qaradiisu weynaanaysa hadduu myelin lahayna qaradiisu dhubnaanaysa. Marka waa arki doonaa. Marka unmyelin leeyahay waxay maraysaa marka bila myelin tahay swimming maraysa macnaha way soconaysaa continuous. Halka unmyelinated jump sameeyay boodbooday marka soconayna. Swimming ka dambana qaadana swimming ka wuxuu ka dhacaa unmyelinated portion waa neuron-kii u dhex carraysa xogtu iyadoo si toos u dhex carraysa. Saas toos ahaan buu dhex carraysa xogtii neuron-ka waxa ka dhex socda saas u dhex carraysa xogtu. Marka waxay socotaa continuous way odhan doonaa. Sidoo kale dhaqaaqeedu mataqaanaa inay dhaqaaqeedu velocity-goodu waa slow mana air buu socotaa sababtoo myelin meesha ma jirto halka kale ka tahay mataqaanaa boodboodaya dhow markii doonaa. Marka kan time buu qaadanaya intuu dhex soconaya meeshaas dheer inuu meesha dhamaystir loo baahay. Sidoo kale waa energy u baahay. Halka kale salivatory-ga ama kan jumping oo isagu ka boodayo qaybta loo yaqaan noraphere ku waxay noraphere intii waxaan u gudbin waxay noqonaysaa salaam marka neuron ka soo qaadano kale neuron-ka laga kale waxaan inta qaybta waxay noqonaysaa qaybtii mataqaanaa ka haduu neuron-kii arrowga neuron-ka naga soo qaad waxa ku waxaysanaa ku dawoolanay sano kale yihiin waa myelinity marka qaybtaas waa la oranayaa noraphere macnaha waa inta aan lahayn myelinta noqonaysa waa inta u dhaxaysa mataqaanaa labada neuron inta u dhaxaysa ama labada myelinta u dhaxaysa intaas macnaha kani ka dhex gudbaya waa faster u degdeg badan yahay sida ka hor markii loo dhigay sababtoo kii hore muxuu uu soconayay unde markaas kala isu boodboodaya isla markaa meeshuu gaaraya. Energy yarna wuu la isticmaalaya ay laba qodob ma isaga oran doonaa inuu either ka imaado orthodromatic ama antidromatic. Orthodromatic marka leenahay waa soomadii ama cell body-ga hadda soo sawarnay ee centerka ahaa to axon terminal ku tagaya ama markay leenahay antidromatic marka leenahay axon terminal ku iman kara to soomu tagi kara ama cell body waa soo kartaa. Waxa kale loo yaqaan sooma cell body waa kan ka sheekeynay kaas xogta halka ku isagaysaa waxayna ku buuxsaa taas ku tagaysaa si degdeg waliba. Haddaba waxyaabaha saameyn garaya mataqaan action potential-ka saddex afarta qodobeyn waa absent myelin sababtoo hadday myelintu absent tahay xogteeni way delay noqoshada dib u dhacaysa haddaan myelin fiicanaysanana xogteenu fiicanaysa way diameter-ka saas
hadduu neerfu ka mataqaanaa diameter weyn ama ka size weyn wuxuu ka xoog mataqaanaa gudbin og yahay marka age-ka loo eego. sidoo kale ciyaalka yaryar iyo odayaasha waaweynba marka loo eego waa yar slowly marka loo eego xilliga action potentialkooda neuronkooda. halka dadka mataqaanaa 5 to 15 age u dhaxeeya iyo 15 years old u dhaxeeya na ay mataqaanaa ay ka shaqeyso xooga u shaqeyso mataqaanaa nerveskooda ama impulseskooda. sidoo kale temperature-ka uu nagu saameyn karaya oo xilliyada warmerka nerveska xilliyada macna diirimaadka nerveskeenu waa highest xilliga uu coldkan uu yahay lower speed yahay. kulli waan dheereeyaan filayaa cashirka cusub in laga raago inagu mataqaanaa batay. insha Allah waxaan rajeynayaa cashiraantina continuous nagu socon doonaan saa u socon doonaan. insha Allah kusoo dhawaada channelka mar kale iyo mar saddexaadba. asxaabta iyo dad la jeceshayna gaarsiiya. waan ka socon doonaa waxaan sii geli doonaa excitable tissue ama action potential salago ka dhaco ah nerveska iyo muscle-ka ayaynu ka socon doonaa insha Allah. intaas caawin nagu joogaysa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.